gabdhihii dhibaato fara badan baad ku haysaan ka daaya subaxii waa la kicin la'yahay xalo dhan buu sheekayna xalo dhan buu wax been iyo waxaan jirin iyo qubxi ku daldalahay saanaan ku yeela intaan kaa bixina kanaan ku yeelaya oo beentii ah subaxiin waa ka dhuumana wuxuu ka dansanaa muumilka habeenkii waa haddana ku bilaabaya dhallinyaro waxa idin xafidi kara waa soonka waxa idin xafidi kara waa guurka waxa idin xafidi kara waa taaca ilaahi waxa idin xafidi kara waa inaad ilaahi u dhawaataan subxaanahu wa tacaala soonkaa laga celin jiray kubii hore intay soonka badiyeen ay soonka laba jibaareen yaa rasuulku wuxuu dhihi jiray saaha yeelina salaad baa laga celin jiray waxyaabo fara badan oo noocaas ah aawa saddexdii wiil ee inta guriga nabiga timid tiri camalkiisa noo sheega markii loo sheegayna mid yiri aniga maba seexanaya habeen walba taagnaana waa dhalinyaro habeen walba tugan ilaa ka dhinto kii kalena anigana dumarka guurkooda dhan baan ka fogaanayaa sakora dhamaatay xafaaya dhamaatay kan keen iyo maxaa la dhaaya waa ka iska dhaafaya ayagoo dhan bashirtoodii fidnadooda ka saddexaadna muxuu dhahay anigana waa soomayaa dahriga oo dhan in allaala intaan noolahay warsaa ha yeelina waxa laga celcelinaya waa soon idinkana waxa laydin faray waa soon intaad soomi lahayd waxaa kaaga fiicnaa dembiga shamiya inaad gacanta ka qabsato gabadha magaalada la marta miya dhalinyarada qaarkood waxaad moodaaba in jannadii ilaahay loogu ballan qaaday saas u socdaa laba gabadha dhexda oga jirta markaasaa wuxuu u soconaaba si mataqaanaa shaytaankaba ka xun sow u soconaya mutakabbirnimada iyo isla weynida iyo waxyaabaha noocaas oo kale ah meesha masaajidka albaabkiisu soo maraa xataa hadduu xishoon lahaa bocbocyada iyo meelaha jeekda iyo keenta la mar laxbay ahaan lahayd idaa lam tastaxyi fasnac maa shita haddaadan sariig lahayn waxaad doonta samey buu dhahay nebiga marka tobankan dambe aad aan u dadaalno tobankan dambe ilaahi subxaana wa tacaala aan barina soonkaan soo soonnay inuu ilaah naga aqbalo juhdigana aad loo laba jibaaro qofkii ictikaafaa aad buu u fiican yahay ilaah subxaana wa tacaala agtiisa ajir dheeraada ayuu markaa ka helayaa qofkii tobankan dambe kaca نبي يقول من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه انت صرنا وحيت الماميسا طبعا كان ذنب قيمها اي فضلك اي وناق اوليه هل كاهبين صدقات لبحضه صلاة ادوكته بريئة ربي بريضه تصبيح الله تماضه خير من 1000 شهر كن برضو يكا خير بدنتاي لا يا نص عمرك حتى جاري لهين مركا كدبنا قبل دي صونكا لجاريا صونكي بعد ضمانايا mar allaala markuu dhammaadana ummad waxay noqonay raabix iyo khaasir qof ribxay oo liibaanay oo guulaystay oo soonkii alla ka aqbalay iyo khaasir khasaaray hoogay dulloobay dadka labadaas ay u kala qaybsami doonaan ilaa xaq waxaan ka baryaynaa inuu nagu daro dadka raabixiinta ahoo ribxi doono faa'idi doona soonkoodana ilaahay ka aqbali doono subxaana wa tacaala ilaahay waxaan ka magangelaynaa dadka khasaaray ee soonkooda inta la soo duudo wejiga looga soo tuuray ee rabbi dhahay hoo soonkaaga uma baahniyo waciyaadu billaah kuwaan ilaahay naguma daro subxaana wa tacaala inta xanuunsan caafimaad taama ilaahay ha siiyo inta jiran ilaahay caafimaad taama allah ha siiyo inta xanuunsan allah ha caafiyo inta dhibteena dhibka allah ka qaado inta kurbaysan kurbada allah ka faydo in allaala inta dhibaataysa dhibka allah ka rafaco shari shaytaan allah naga xijaabo dadka saayimiinta soonkooda la aqbala allah nagu daro baabu rayaan dadka ka geli doona allah nagu daro dadka laga soo celin doono fadhin doono meeshooda ilaahay ha naga najiyo subxaana wa tacaala ilaahay quluubtana isu koosdumo salaadaha allah naga aqbalo cibaadaadka iyo khayrka iyo wanaagga sida aan ugu socono ramadaanka intaan ku jirno markuu dhammaadana ilaahay saasoo kale ha noo qadiro ilaahay subxaana wa tacaala intii xumaanta ka soo tagtay ramadaan dartii goobii qayilaada meelihii fisqiga meelihii macaasee masaajidka soo buux dhaafiyey ilaahay sidooda allah noogu sugo masaajidkii beydka allah ku sugo shaydaan marka la soo daayo wuu soo noqon doonaa masaajidka albaabkiisuu nagu sugi doonaa intii ka soo firxatuu raadin doonaa inuu ku darsadee shartiisa allah naga xijaabo shartiisa allah naga haayo tobanka dambe kuwa ka faa'iideysta allah naga dhigo ilaahay subxaana wa tacaala laylatul qadri kuwa waafaqa rabbi allah naga dhigo allahuma innaka cafuwun tuxibu alcafwa facfu cana allahuma innaka cafuwun tuxibu alcafwa facfu cana allahuma innaka cafuwun tuxibu alcafwa facfu cana wabillahi tawfiiq wallahu subxaanahu wa tacaala aclam